Sidii aan hore u samayn jirnay, waxaan soo booqanay garoonka Macquul Stadium ee ku yaala degmada Waaberi, soonaha number 4. Dhalinyaro yaryar, dhalinyaro cuslaatay oo tababar ku sameeyaan garoonka Macquul ayuu wuxuu ka mid yahay muddooyinkan dambe garoomada aad iyo aad dhalinyarada ay u xiiseeyaan oo aad iyo aad ay ugu sameeyaan habeen iyo maalin. Salaada subax kadib waxaa tababar ku bixiyo macalimo Xasan Cali Roble Babaay, gudoomiyihii hore ee dekedaha Cabdullaahi Faarax Cismaan iyo dhalinyaro badan meesha isku kaashadeen ay joogaan. Maanta runtii markaan soo galnay gudaha ayaa waxaan ku aragnay awdaada oo macallimiinta dalka soo maray ka mid ah, ciyaartooy badanna soo saariyo aad iyo aad ugu shaqeeyay. hadaladiisana waxaa ka mid tahay ahaa macallin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aadan ku salaam macallimo magacayga saddexan waa Mukhtaar Abduqaadir Heel oo loo yaqaan macallimo awdaada muddo badanna kasoo shaqeeyay kubadda cagta dalka haddana maaragtay saakay iyo isbuuc hore waxaan maaragtay dib u imaaday garoonka Macquul oo rag badan oo saaxiibaday ah kubadda cagta macallinimo isku soo aheen iyo rag kaleento maaragtay aniga aan soo saaray shakhsiyan oo xogaa eegana ulusaado meesha aan isku wada aragnay. waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta ka soo muuqdo beejka macallinkayga macallin Saalax Faarax Maxdiin macallin waa ku dhawaad macallimo horta caafimaadka wuxuu ku jiraa maaragtay training ku jiraa in mar walba la joogteeyo la sameeyo ma aragtaa kubadda cagta inaysan maaragtay aan da'da ay leeyahay oo ogtahay kubadda cagta waa sida adoo wax baranayso kala waaye kubadda cagta ma dhamaato waxbarashadana ma dhamaato marka training-ka aan sameynayna am saaka ay u aragtayba isbuuc hore imaaday walow maaragtay goosgoos aan u sameynay laakiin hadda waxaan si toos ugu soo xirnay ragga oo maaragtay saaxiibadeeda ay macallimiinta isku lahaa jirno oo garoonka Macquul socoto waxaan sir markaa labada bil maaragtay ka faa'iideyso si maaragtay ramadaanka ee Ilaahay ku gaarsiiyo oo si wanaag badan oo fiican aad ugu soonto walow ramadaanka bil cibaado ay tahay haddana waxaan gareystay maaragtay bishan Shacbaan inaan maaragtay rag saaxiibadeeda la almiinteeyo training-kii maaragtay walba jirka waa barnaay almiintada laakiin xogo walaasi maaragtay iyo ka dhex bixis la'aan ay keen darteeda aan soo laabtay shaqadan horta oo kubadda cagta ama shaqada oo jimicsiga ama jirdhiska ama almiintada qofka shakhsiyan aseedan ugu jirtaa inuu sameeyo qofka hadduu dhalinyaro yahay hadduu eej yahay hadduu young yahay intaba qofka bini'aadinka ah oo ilaahay leexiisa laham oo maaragtay leexiisa oo taam ilaahay oo ka dhigay intuu guriga isku joogi lahay waxa fiican hata subaxdii markuu salaad soo dugto kadib inuu maaragtay la wareeg saddex wareeg soo gala caafimaad ahaan iyo jir ahaan qofka asay u fiican tahay tanne waxay kaaga dugan tahay maaragtay dhanka oo maaragtay in ejkaaga naftirkeeda aad la dagaalantid walow waqtiga oo iska socdo waxay lama tahay maaragtay in maaragtay jirkaaga exercise u bartay ma fadhin kartid mar hadduu jidka almiintadii bartay iyo hadduu mar jidkii inuu training oo sameeyay iyo jirkii aan fadhi karin macallimo marka waxay lama tahay in uu jirkaaga almiintadii uu baahan yahay oo na barin yahay aniga hadda isbuuc hore ma sabtidii kala waa karaa sabtidii hore maaragtay waxaan soo dhisay conditionkiga soo dhisay walow maaragtay muddo badan oo igu dambeysay ilaa 4 sano aasa u jeeday safka hore ee orodka jimicsi isbuuc hore muslimiin sababtoo jidkayga ma qaadan karo macallin ahay tan hore waxa conditionkayga iyo awoodeeda iyo adkeysiga soo dhisay saakii sabteena waa si toos macna waxaan ku qaybtay jimicsiga iyo orodka iyo fakta aan qayb qaatay waa ujeedaa saan ugu diyaarsanahay macallimo hadda aan teamka martiyaan ku ahay walaalkii Xasan Cali Roble Babaay waa ugu soo dhaweeyay kabtankayga joogo macallinkayga hore Cabdullaahi Faarax joogo yaasiin Booji Khabaar oo macallin oo soo ahaa joogan markay walow dadkaas shaqada dadkaas iska leeyihiin ani ardayda meel joogta kamid ahay macallin mihi hadda ana macallin iyo shalay macallin ahay laakiin maanta ana macallin yahay ragaas macallin waxay ragaas sameeyaan inaan sameeyo qasbana laakiin waxaan rajeynayaa haddii oo maaragtay bacda ramadaan ay meesha imaato inaan maaragtay macallimiinta iska nastaano nimanka inaan maaragtay ana la wareego aan rajeynayaa insha Allah macallimiinta ay ugu soo dhaweeyaan سلامة مع أوقاتها شرفي كرامه معلمين صوت شقي سبورتيان وحبضن كسو قبطي مرك ورجاء إن أصور نقد سوى فلتي أبصر نقد ورجاء إن شاء الله 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 معلمون إن شاء الله good work